السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق وان إذن سلامي ميلو لبو الدنيا كجوكتان يا سوال بو مقل كيغا إذن سو غاريو وحان إذن لا يهدي أي تاماكي إذن كهريسي يا سو بوقتان هالكان إنا جنالك سبسكرايب نو سارتان سيدو كالي آد كومنتينا أما فريميهنا آتنا لسو وداكتان وحان إذن هايا أرين حساسي أرين كاسي أو أرين آن مرنبا لغا آموسي sidaad wada ogeedeenba maalmahan dambe waxaa baraha bulshada ka kacsanaa nin magaciisa la yiraahdo Abu Sufyaan ama aad u taqaanaan afar xaasle ayaa maanta wuxuu waraysi siiyay wariye Cabdi Xaafid Maxamuud halkaasi wuxuu ku sheegay ama waraysigiisu uga hadlay in gabi ahaanba uu doonayo in uu bedelo calanka Soomaaliya wuxuuna sheegay in calanka Soomaaliya loo istaago ama salaan loo saaro ay tahay wax dambi ah ama shirki ah isagoo oo sheegay in uusan kaligiis ahayn hadaba adiga sideed u aragtaa in calanka Soomaaliya la bedelo daawo muuqaalkan si aad waxaan macallimiin waxaan dad wax bara dadka waxaan ugu tala galnay dadku inay wax bartaan soo saad u aragtaa calanka koow waxaan sameynay xidigihii caadiga ah oo Soomaalidu ay taqaanay oo shan ah iyo mid dhexda ku jira xiddigtii shaydaanka yes absolutely midii shaydaanka oo quraasi aan ku qorana meesha ujeedadan ugu qorana waxay ahayd in aanan samaynin drastic change oo aad ogtahay qofka bini aadamka wax cusub hadaaka intid waxa laga yaabaa markii inuu kula dagaalamo waxa laga yaabaa inaanan helin chance-kii xataa la ku dhageysan lahaa laakiin waxaan helnay maadaama aan xidigii wadno waxaan helnay wixii wax ka duwan doodeena markaas haddaad dhageysan lahayd waxay ahayd hal xidig shan xidigooda ka badan wadan baan xidig siino waa la qaatay dhageysan ku dhameeyay ninka la yiraahdo xaafidow markii taasna la ka qaatay waxaan qornay Allah oo u qoran digital ma xidigaha la joogno xoogaa ya xidigaha rabayna la joogno xoogaa shanta xidigaha la joogina may waa calanka dhan rabayna ku sharxo xidigihii marka time markii la gaaray ya shay saga ka dhaxyaa midba mar aan qaadno Allah iyo waa imaanayna marka taali jawaabaya so waxay ahaayeen gradual education and waxbarid tartiiba oo la rabo shacabka Soomaaliyeed kow in waxay ay yaqaaneen looga bilaabo calankii la bedelayaa wax yar baa laga bedel waxa timid marka in la yiraahdo bishan ku soo darna hadda waxaan ku raacay bishu inaysan ahayn calaamad islaam annaga waa ognahay bishu inaysan ahayn calaamad islaam laakiin shacabka Soomaaliyeed waxay u yaqaanaan bishu inay tahay calaamad islaam dadkooda inta badan meesha ka timid ma yaqaanaan Uthmaaniinta inay sameeyeen yaqaan adigu research sameeyay you did your homework marka bini aadamka marka tabtid inaad wax gelisid waxa loo gariyaa si gradual hadda tiraadid hal mar aan wixii dhamaa gelinaya ma awood uma lihid inaad gelisid anaguna waxaan dad soo bartay wax la political philosophy and political strategy so that is qaacidada aan ku socono waana maasan okay fine you see mushkilada meeshan ka jirto waxay tahay waxa dadka teena ka talaashan baa tiraadeen daawo u qaato waa idin badanaynaa ko waa ka soo gudubnay hal waa ka soo gudubnay waa ku dhageystay fadlan hadda waa ka soo gudubnaa inaad tiraahdo daawo u tahay hadda waxa la taagan yahay ka hadal waaqican caadiga waana ku sheegay waxaan ka wadi adaa ka gudbay aniga baaburkayga hal geeri buu ku socdaa tartiib buu socdaa 90 mile an hour baa ku socotaa because waxa ku saaran maxaa la lahaa engine VA the challenge relax okay I'm relaxed thank you I like that waxaa jira waxaad tiraahdeen waxaan waa diimo qalaad 10 jeer baad ku celisay xidigtan waxa iskala afar diimood oo kala duwan xidigtan inaad dadkii ka talaashaan oo aad kala dagaalantaan aqoon-yahaniintii maadaama aad tiin wasa hadalka u dhigtay and I don't doubt for 1 minute daawada waxaan filayaa in aad muuqaalka si fiican aad u soo daawateen aadna fahanteen wuxuu u damacsan yahay Abu Sufyaan wuxuu sheegay in gabi ahaanba uu doonayo in uu qadkaba ka saaro astaanta calanka Soomaaliya wuxuuna sheegay in gabi ahaanba uu rabo in uu bedelo hadaba daawada maxay kula tahay inuu damacsan yahay Abu Sufyaan ani ahaanteeda waxay ila tahay in dalalka shisheeye ay ka dambeeyaan arinkan waxayna doonayaan in gabi ahaanba ay la dagaalamaan Soomaaliya hadaba haddii aan nahay Soomaali dig Soomaalin oo nagu jiro ma qadan doona arinkaas daawade fikirkaaga nagu reeb xagga hoose ee commentiga aad ayaad u mahadsantihiin